Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada qaybtii labaad ee cutubka shanaad. Qaybtii hore waxaan kusoo aragnay fallacies of relevance. Qaybta waxaan arki doonaa fallacies of weak induction. Qaybihii kalena way ku xigi doonaan. The fallacy of weak induction violates the principles of sufficiency. Waxaa la yidhi fallacyga weak induction waxay jebinaysaa xeerasha sufficiency. Sufficiency waxaan soo aragnay inuu ahaa mid ka mid ah shuruudaha lagu qiimeynayo doodan inay tahay good argument iyo inay ahayn. Marka wuxuu sheegayaa sufficiency doodani waa inay soo jeedisa baa la yidhi muxuu ahaayey marka ruux kasta uu soo jeediyo baa la yidhi dood waa inuu isku dayo inuu cadaymo la xidhiidha oo la aqbali karo waa inuu keenaa. Sidoo kale cadaymahaasi waa inay yihiin baa la yidhi sufficient in number and weight, culays ahaan iyo tir ahaanba waa inay ku filan yihiin to justify the acceptance of the conclusion, si aqbalitaanka muxuu ahaayey conclusionkan loogu cudurdaar looga dhigo ama loogu sababeeyo. Haddaba waxaa jira noocyo kala duwan oo fallacy of weak induction kuwanaa ka mid ah appeal to unqualified authority, hostile generalization, false cause fallacy, weak analogy, slippery slope iyo appeal to ignorance. Midkan koobaad haddaba appeal to unqualified authority waxaa la yidhahdaa cuskashada authority aan muxuu ahaayey waxaan loo cuskanaya aan tayo lahayn. Authority waxaa la yidhahdaa shayga ama waxaa la yidhahdaa khabiir ama ruux wax gaara looga dambeeyo laga soo xigtaa la yidhahdaa authority la yidhahdaa. Marka wixii ruuxu wuxuuna ku takhasusin ama una tayo lahayn oo loo cuskado ayaa la yidhahdaa fallacyga noocaas la yidhahdaa appeal to unqualified authority. Waxaa la yidhahdaa appeal to unreliable authority. Waxaa la yidhi is an appeal to an authority when the reliability of the authority may be reasonably doubtful. Waxaa la yidhi waa cuskashada baa la yidhi authority-gaasoo muxuu ahaayey ay muxuu ahaayey isku halaynteedu ay tahay mid shaki ku jiro. Marka appeal to unreliable authority waxaa la sameeyaa baa marka ruuxan doodaya uu ka soo qaado isagoon caddayn ku filan haynin in authority-gan laga hadlayay ay sax tahay. Tusaale ahaan inuu la isku halayn karo uu ka soo qaado iyadoo ay jirto baa la yidhi shaki cad oo ah authority-gaas inayna reliable ahayn iyadoo la ogyahay. Tusaale ahaan fallacyska noocan inta badan waxay dhacaan baa la yidhi muxuu ahaayey waxyaabaha xayeysiisyada iyo ruux tusaale ahaan oo kale caan oo la yaqaan ayaa wax uuna khibrad u lahayn ayuu xayeysiinaya. Tusaale ahaan waxaa la leeyahay artist caan ayaa wuxuu leeyahay Vera pasta is the most nutritious food. Vera pastada waa cuntada ugu nafaqada badan. Sidaas darteed waxaad leedahay conclusion waxaad samaynaysaa so Vera pasta must be the most nutritious food. Vera pastada waa inay noqoto cuntada ugu nafaqa badan adoo cuskanaya authority-ga ninkan artistiga aan waxaan u balahayn. Ninkan waxaa laga yaabaa good artist uu noqon karaa laakiin dee ma aha nafaqada iyo nutrition muuna baranin. Marka authority aan muxuu ahaayey shaygan aan khibrad u lahayn ama aqoon u lahayn haddaad u daliishato oo wixii u cuskato fallacyga noocaas waxaa la yidhahdaa appeal to unqualified authority. Marka waxaa la yidhi nooc aad subtle a more subtle appeal to unreliable authority occurs. Waxaa la yidhi mid aad u qarsoon oo la dareemin wuxuu dhacaa marka khabiir wax gaara lagu yaqaano filli gaara lagu yaqaano loo soo xigtay baa la yidhi isagoo sida filli kale oon khibrad u lahayn loo soo xigto. gaar ahaan waxay dhacdaa isagoo hadda khibrad filligaa kale gaarka aan khibrad u lahayn. Gaar ahaan waxay arrintani aad mid aan la dareemin karin u sii tahay baa markay labada filli yihiin wax isla xiriira. Tusaale ahaan waxaa la yidhi Professor Ali who is an expert in animal science. waxaa la yidhi Professor Ali oo ah nin khabiir ku ah cilmiga muxuu xayawaanka ayaa wuxuu ku dooday bulshadu hadday midka kan oo tir ahaan badan ay tahay waxaa jira buu leeyahay shaqo qaybsi dhanka shaqada aad u sarreeya. Hadday bulshadu tir ahaan yar tahayna qaybsiga shaqooyinku aad buu yaraanaysaa bale. Ninkan haddaba argumentigiisu baa la yidhi waa flawed waa mid khalad ku jiro ama mid jaban because sababta the expert's field of specialization and the conclusion he made are unrelated. waxa uu ku takhasusay iyo conclusionka uu sameeyey gabagabada dood uu sameeyey waa waxaan isla xiriirin. Nooca labaad fallacy of weak induction waxaa weeyaan appeal to ignorance. Noocan wuxuu dhacaa baa la yidhi marka premises-ka ay dood iska leedahay ay sheegaan in shay jiritaankiisa ama jiritaan la-aantiisa aan la caddaynin. Conclusionkuna uu sameeyey baa la yidhi sheegasho cad oo ku saabsan shayga. Marka doodaha noocana waxaa la yidhahdaa waxaa ku jira muxuu ahaayey khalad loo yaqaano ama khalad nooca loo yaqaano appeal to ignorance. Inta badan baa la yidhi waxyaabaha noocan waxay dhacaan marka shaygan uu yahay mid aan la caddayn karin ama shay aan weli la caddayninba. Tusaale ahaan waxaa la yidhi dadku waxay sanado qarniyo badan isku dayeen in ay caddayn u keenaan sheegashada ah in boqorka Itoobiya muxuu ahaa Haile Selassie koobaad inuu yahay dafiirtii boqorka muxuu ahaayey David ee Israa'iil. ruux ku guuleystay oo caddayn u keenay ma jiro. Saas darteed conclusion waxaa la sameynaa waxaa la leeyahay waa inaan kusoo gabagabeynaa in Haile Selassie uuna ahayn muxuu ahaayey dafiirtii boqorka Israa'iil uuna ahayn marba haddii la caddayn waayo inuu yahay ma aha. doodan kale tusaalahan kalena isaguna waa isla isagii oo la rogay
noocan has generalizationku waxa weeyaan waa kasoo horjeedka accidentigii aan hore usoo aragnay. Marka noocan waxaa la yidhi aqoonta ama waxa aan ka ognahay sample yaroo lasoo xushay ayaa waxaan u adeegsanaynaa inaan sameyno sheegasho ku saabsan kooxda dhan ee uu sambalkaasi ka tirsanaa. Waxaa la yidhi memberska ayaa laga yaabaa inay dabeecado gaara leeyihiin. Saa darteed ruux wuxuu ku doodayaa in qayb ka mid a memberska laga yaabaa inay dabeecado gaara leeyihiin. Kadib waxaad ku doodaysaa in dhammaan groupkan inay sambalkaas ama muunadda aad ka soo xushay inay iyaguna isla dabeecadaas oo kale leeyihiin. Tusaale ahaan waxaa la yidhi haddaan rabno inaan ogaano aragtida ardayda ee ku saabsan muxuu ahaa in lasoo saaro xeer mamnuuca iyo isticmaalka Facebook jaamacadda dhexdeeda in lagu adeegsado lagu isticmaalo. Waxaa laga yaabaa inaad 10 arday aan soo xulano 10ka arday cod laga qaado. Haddii natiijadu noqoto baa la in 80 ka mid ah 80 boqolkiiba 10ka arday haddii ay u codeeyaan xeerkan ama ay door bidaan, waxaa laga yaabaa inaan la nimaamo sameyno conclusion ah boqolkiiba 80 ka mid ah ardayda guud ee jaamacaddu way u codeysay. Marka sambalkan lasoo xulanayo waxyaabo badan baa saameyn ku yeelan kara oo khaladka keeni kara. Waxaa keeni karaa sambalka size-kiisa inta uu dhan yahay tir ahaan yarida iyo badnida sambalku saameyn bay ku leedahay muxuu ahaayey waxaan la sameynaya saxnaanshihiisa. Sidoo kale dadkan lasoo xushay xaaladooda nafsiyeed ee ay ku jiraan lafteeda saameyn bay ku leedahay. Waxaa kaloo saameyn ku yeelan kara randomness, si aan kala sooc lahayn ma loo soo xulay dadkan mise dadka qaar baa si gaara loo xushay. Waxyaabahaas saameyn ku yeesha. Noocan kale waxa weeyaan false cause fallacy. False cause fallacy waa la yidhi waa nooc muxuu ahaay khalad oo ka dhashay baa la yidhi sababeynta. Khaladaadyada noocan ama fallacyska noocan waxaa la yidhi waxaa la sameeyaa xidhiidh u dhexeeya laba shay ayaa xidhiidh sababeed laga dhexaysiiyaa iyadoo laga yaabo labadaas shay inay xidhiidh sabab lahayn. Tusaale ahaan waxaa la yidhi a sophisticated statistical study by Dr. Zemanu Ahmed and Professor Wekjira Negera. Waxaa la yidhi daraasaad dhanka tirakoobka oo heer sare ah oo ay sameeyeen Dr. Zemanu iyo Wekjira professorka la yidhahdo Wekjira ay sameeyeen baa la yidhi iyagoo soo xiganaya daraasado laga sameeyey 141 waddan ayaa waxay soo ogaadeen in mar kasta ay badato national gross national product ama wax soo saarka guud ee waddanku tirada boqolkiiba inta uu waddanku wax soo saarkiisa guud uu hub ku bixiyo mar kasta ay badato waxaa sidoo kale badata bay leeyihiin dhimashada carruurta. Marka Dr. Zemanu iyo Professor Wekjira waxay leeyihiin waxay ku soo gabagabeeyeen inuu jiro xidhiidh suuragal ah oo u dhexeeya military spending iyo sidoo kale infant death rate. Dhimashada carruurta iyo kharashka militariga lagu bixinayo inay markasta inuu xidhiidh u dhexeeyo oo suuragal ay sheegeen. Marka labadan shay waxaa laga yaabaa inuu mid kala sababayn. Labadooda waxyaabo kala duwan oo kala gaar ah inay sababaan ayaa dhici karta. Marka false cause fallacy waan arki doonaa qaybo badan buu leeyahay. Waxaa jira 3 qaybood oo iska leeyahay muxuu ahaayey false cause fallacy. Ka ugu caansan waxaa weeyaan baa la yidhahdaa maxay waa ereygan intaas macnahaas waxaa weeyaan waa Latin. Macnaha waxay ka dhigan tahay after this therefore because of this. Noocani baa la yidhi waa nooc khalad dhanka sababeynta wuxuuna dhacaa baa la yidhi whenever an arguer illegitimately assumes that because event X preceded event Y, X caused Y. Mar kasta oo ruuxu si aan caddayn isagoon u haynin ku dooda baa la yidhi maadaama dhacda X ay ka horreysay dhacda Y, X ayaa Y sababtay. Tusaalahan ayaan si fiican ugu fahmaynaa. Laba shay oo laba kala hor dhacay ayaad leedahay tii hore ayaa tan dambe sababtay. Tusaale ahaan since I come into office 2 years ago ilaa intaan imday buu leeyahay muxuu ahaay xafiiska 2 sano ka hor heerka dambiyada rashbadaha watahay hoos bay u dhaceen si weyn. Saa darteed waxaa cad buu leeyahay in xukunkii xabsiyada dheeraa ee aan soo jeedinay inay shaqeynayaan. Marka xukunka xabsiyada dheer uu soo jeediyey iyo imaanshihiisii ayaa wuxuu la xidhiidhinayaa maxay markay kuwaas dhaceen kadib in ay yaraadeen muxuu ahaay dambiyadiina ay yaraadeen maslaxineen. Nooca labaad ee fallacyga waxaa la yidhahdaa waa shay aan shaygii sabab ahayn oo sabab looga dhigo not the cause for the cause. Waxaa la yidhi noocan wuxuu dhacaa marka shay aan shaygan kale sababaynin gebi ahaanba sabab looga dhigo. Tusaale ahaan waxaa la yidhi successful business executives are paid salaries in excess of waxaa la yidhi maamulayaasha ganacsi ee guuleystay waxaa la siiyaa mushaar ka badan muxuu ahaay $100,000. Saa darteed jidka ugu muhiimsan ama qaabka ugu fiican ee aan ku xaqiijin karnay in cabdi uu noqon karo isaguna muxuu ahaay maamula ganacsi oo guuleystay waa inaan mushaarkiisa gaarsiinaa ilaa ugu yaraan $100,000. Marka shaqada saad u qabato ayaa ku xiran mushaarkaaguna yaa mushaarkaaga sababaysa inuu mushaarkaagu bato. Mushaarka lagu badiyay ma sababaysa in aad shaqada si fiican u qabato. Marka wuxuu isku qaldayaa maxay cause iyo effect ayay tusaalahan isku qaldayaan. Oo waxay leeyihiin hebel si uu si fiican ugu shaqeeyo waa inaan mushaarka u badino. Mushaar badintu maaha waxa sababaya shaqo fiicnida ama shaqo fiicnida ayaa sababaysa in marka shaqo fiican qabato in mushaarka lagu badiyo. Nooca saddexaad waxaa la yidhahdaa oversimplified cause waa nooca ugu badan ee la galabay. Nooca waxaa weeyaan baa la yidhi wuxuu dhacaa when a multitude of causes is responsible for a certain effect. Waxaa la yidhi marka sababo fara badan ay saameyn gaar ah ay keenaan. Shaygan waxyaabo fara badan ama sababa
laakiin ruuxa doodaya baa leh select just one of these causes mid ka mid a kuwan ayuu soo xushaa and represents it as it is as if it were the sole cause sidii iyadoo ah sababta keliya ee waxaan keenta ayuu keligeed buu soo xushaa tusaale ahaan waxaa la yidhi Ethiopia dhibcaha ardada freshka ee jaamacadaha ku jirta hoos bay u dhacayeen sanado badan marka maxaa sababay arrinta baa leh what accounts for this wuxuu leeyahay ninkan well during this sanadahan buu isla sanadahan tirada tirada waqtiga celceliska waqtiga ay ardadu Facebook ku bixiyaan buu maalintii iyaduna way badatay saa darteed way iska cadday sababtu ardadu waa leeyahay waqti fara badan bay Facebook ku bixinayaan meesha wax akhrisan lahaayeen saa darteed waxyaabo badan baa laga yaabaa inay sababaan ardada dhibcooda dhacay Facebookuna uu qayb ka yahay marka wax sabab fara badan leh hal sabab oo kaliya dad soo xulato aad ka dhigto sababtaas inay tahay tii kaliya sababaysa waxaa la yiraahdaa oversimplified cause yaa la yiraahdaa noocan fallacy-gan muxuu ahaay false cause ka qayb ka siya slippery slope fallacy nooca waxaa la yiraahdaa wuxuu dhacaa when the arguer assumes marka baa ruuxan doodaya uu ka soo qaado in a chain reaction will occur but there is insufficient evidence that one event in the chain will cause the others waxaa la yidhi marka uu ku dooday baa le in falcelino muxuu ahaay silsilada oo isku dabeeyo taxan inay dhici doonaan haddii waxa la sameeyo isagoo aan caddayn u hayn tusaale wuxuu leeyahay haddii iyo xidhiidhka u dhexeeya dhabta muxuu ahaaye when there is no actual or real connection among the chain of events marka iyadoo ayna jirin baa le xidhiidh dhab ah ama oo muxuu ahaaye xaqiiqaha u dhexeeya dhacdooyinkan marka ruuxan wuxuu ka soo qaadaya tusaalaan ruux haddaad meel janjeedho ama meel foorar ah ruux hadduu ku istaago haddaad hal tallaabo qaado waad siiban mar haddaad siibatana dee isma soo qaban karta ilaa waxaad tegaysaa xagga hoose salkaad u dhaadhacaysa marka haddaad rabta inaadan salka tegin waa inaad tallaabada hore qaadin ood marka hore ka istaagta doodan noocan oo kalena marka waxay leedahay khaladka noocan oo kale ah falka noocaasa waa inaynaan samaynin haddaan samayno waxaa ka dhalanaya wax noocaasa oo aynaan controlka xakamayn karin oo isku daba xiga oo xidhiidh ah tusaalahan aan fiirino wuxuu leeyahay against cultural social and religious norms of Ethiopia wuxuu leeyahay si kasoo horjeeda dhaqanka iyo caadooyinka iyo diinta muxuu ahaaye bulshada Ethiopia shirkad Chinese ayaa waxaa fasax loo siiyay buu leeyahay inay furto muxuu ahaaye warshad ama meel lagu gowraco hilibka dameeraha meel lagu qodo laakiin shirkadani waa in la xidho buu ku doodaya ninkan sababtoo ah haddii si isdaba jooga hilibka dameeraha loo dhoofiyo wuxuu leeyahay shaqaalaha ka shaqeeya meeshan hilibka lagu qalay ayaa bilaabi hilibka inay cunaan kadibna members of the family of those workers will be the next to eat donkey meat xubnaha qoyska dadkan ka shaqeeya haddana bilaabi iyaguna hilibka cunaan kadibna si tartiib qaraabadooda waxaan jeeda deriska iyo dadka tuulooyinka la degan ayaa iyaguna bilaabi inay cunaan hilibka ugu dambayna waddankoo dhan ayay gaadhi muxuu ahaaye waxayna sabab u leeyahay dhaqankii cuntada Ethiopia inuu gebi ahaanba dubo marka wuxuu leeyahay marka horeysa haddii shirkadda la furo isagoon xidhiidh cad oo jira oo u dhexeeya muxuu ahaay dhacdooyinkan ay jiray wuxuu leeyahay haddii shirkaddan ay bilowdo hilibka dhoofintiisa shaqaalaha bilaabi shaqaalahana qoyskooda yaa ku sii xigi qoyskoodana waxaa ku sii xigi muxuu ahaa xaafadaha deriska saas ku soconaysa markaa wuxuu leeyahay haddaan si aan u joojinay in dhaqanka cuntada Ethiopia inuu gebi ahaanba dumin waa inaan tallaabadii koowaad ay ahayd inaan marka horeba shirkadda fasax loo siinin waa in tallaabada marka hore aan la qaadin noocan u dambeeya muxuu ahaay fallacy of weak induction waxaa la yidhahdaa weak analogy waxaa la yidhahdaa xidhiidhka u dhexeeya laba shay baa laga yaabaa inay wax ka sameyn waxaa la yidhahdaa noocani wuxuu dhacaa marka xidhiidhka u dhexeeya laba shay ama laba xaaladood uun ahayn baa la yidhi mid ku filan inuu taageero siiyo conclusionka xaaladda lagu salaynayo laba shay baa la yidhahdaa ama laba xaaladood waxaa laga yaabaa could be similar to each other in certain respect dhinacyo gaara inay ka sameyn but dissimilar in other respect dhinacyo kale laakiin ay ku kala duwan yihiin haddii baa la yidhi laba case ay dhinac ka sameeyeen kama dhigna inay every respect inay ka sameeyeen kama dhigna waxaa la yidhi hadday dhinac ka sameeyeen meel kale meel kasta hadday ka sinaan lahayn waxaa la odhan lahaa identical marka two cases can be generally similar waxaa la guud ahaan way isu ekaan karaan laakiin waxaa laga yaabaa inay difference badan oo u dhexeeyo oo lagu kala garan inay jiraan tusaale ahaan waxaa la yidhi tusaalahan wuxuu leeyahay after ingesting 1 milligram of substance alpha per day for 90 days kadib marka uu cunay buu leeyahay 1 milligram oo walaxdan alfaga la yidhahdo 90 markuu maalin kasta cunayay jiirka la yidhahdo white mice wuxuu soo saaray waxyaabahan hore loogu yaqaanin baa hidasidiisii ku dhacay ama isbeddel ayaan hore loo arag yaa ku dhacay hidasidayaashiisa sidaas darteed wuxuu leeyahay maadaama jiirkan white mice la yidhahdo iyo biniaadamku ay meelo badan ka sameeyeen waxay ka dhigan tahay biniaadamka laftiisu hadday walaxda alfaaga ay cunaan iyaguna sidoo kale genetic abnormalities baa ku imanaya marka biniaadamka iyo white mice meelo way ka sameyn yihiin laakiin kuma fillo in wax kasta oo muxuu ahaaye ay ku dhaca genetic hidasidayaasha muxuu ahaa jiirka in biniaadamkan ay sameeyaan sababta biniaadamka iyo jiirkan meelo badan way ka sameyn lakin waxyaaba badan ay ku kala duwan yihiin jiraan marka xiriirkan ka dhexeeya labadan shay ee conclusionka lagu saleeyay waxaa weeye waa mid daciif ah nooca waxaan soo dhamaynay fallacies of relevance iyo fallacies of weak induction noocii saddexaad fallacy of perception
waxaa la yidhi fallacy of perception waxaa ka mid ah su-aalaan include begging the question, complex question, false dichotomy iyo sidoo kale suppressed evidence. Afartaas qaybood ayaan arkaynaa. Fallacyskani baa la yidhi waxay u yimaadaan keliya ma aha baa la yidhi muxuu ahaa premise-ka oon xidhiidh la lahayn conclusion-ka ama aan siinaynin caddayn ku filan, laakiin waxay u yimaadaan baa la yidhi premise-ku presume that they purpose to prove. waxaa la yidhi premise-ku waxay kasoo qaadaan inay muxuu ahaa caddayn keenayaan, kasoo qaad assumption waxooda ku socdaa ama perception. kan koowaad hadda waa begging the question. waxaa la yidhi noocani wuxuu dhacaa whenever the arguer creates the illusion that inadequate premises provide adequate support for the conclusion. waxaa la yidhi marka uu ruux isku daya baa la yidhi caddaymo aan ku filayn ismoodsiis wuxuu sameynayaa in caddaymo premises aan ku filayni ay keenayaan caddayn ku filan ay u keenayaan maxay conclusionka, isagoo ka tagaya baa la yidhi premise beena oo muhiim u ah kadibna dib u sheegaya baa la yidhi premise false ah inay conclusionki tahay ama or by reasoning in a circle ama usqaab isku wareeg si isku noqosho u sababeynaya oo wixii premise kugu soo sheegay iyo haddana mar labaad conclusion ku sheegay. tusaale ahaan humans and apes evolved from common ancestors. daanyarada iyo biniaadamku waxay kasoo farcameen awyaal isku mid ay ka yimaadeen. just look how similar they are. fiiri wule siday u egyihiin uma fiiri maadaama aad bay isugu egyihiin markaa hal meel ay kasoo farcameen. marka baa la yidhi argumentigani su-aashan yuu keensan oo waxaa la isweydiin karaa does the mere fact that humans and apes look similar miyay keliya xaqiiqada ah in baa la yidhi in xayawaanka daanyarada iyo biniaadamku ay isu egyihiin imply ay ka dhigan tahay that they evolved from common ancestors inay isku mid kasoo farcameen ma inay isu ekaadeen keliya ayaa loo daliishan karaa. marka su-aashani waxay caddaynaysaa baa la yidhi that something has been left out, in shay muxuu ahay ay ka maqan yahay baa la yidhi doodii hore asalkayd. saa darteed argumentigani waxaa ka maqan baa la premise-ka ah if humans and the apes look similar, haddii biniaadamka iyo ay isu egyihiin then they have common ancestors. premise-kaasa marka ka maqan muxuu ahaa doodan. complex equation. the fallacy of complex equation baa la is committed waxay dhacdaa baa la yidhi marka labo ama in ka badan oo su-aalaha lagu weydiiye baa la yidhi sidii isagoo hal su-aal baa lagu weydiin laakiin labo ama in ka badan oo su-aalaha ku hoos jira kadibna ruux uu bixiya baa la yidhi hal su-aal hal jawaab oo ka bixiya su-aalihii hore. tusaale ahaan waxaa lagu weydiiyey have you stopped cheating on exams. su-aashaas lagu weydiiyey ma joojisay qishta imtixaanka ma joojisay. waxaa kaloo lagu weydiiyey where did you hide the corpse of the person you killed. xagee baad ku qarsay baa la yidhi meydkii ruuxii aad dishay. marka kasoo qaad baa la yidhi ruuxan la weydiiyey inuu kaga jawaabay su-aasha koobaad yes oo la yidhi imtixaanka qishtii maad joojisay baa la yidhi haa buu yidhi first question saas uga jawaab. su-aasha labaad xageed ku qarisay ruuxii aad dishay meydkiisiina wuxuu kaga jawaabay under the bed sariirta hoosteedaan kaga jawaabay. marka su-aalahiisan jawaabahan u bixiyey su-aalahan haddana ka dhiman waxaa la yidhi haddana waxaa la leeyahay you were asked whether you have stopped cheating on exam. waxaa lagu weydiiyey imtixaanka qishta inaad joojisay in kale waxaadna ku jawaabtay haa therefore saa darteed waxay ka dhigan tahay it follows that you have cheated in the past. marka inaad imtixaanka qashi jirtay bay ka dhigan tahay soo mar haddaad leedahay waan joojiyey hore inaad u qashin jirtay bay ka dhigan tahay sooma su-aal baa ku hoos jirtay markaa you were asked. sidoo kale su-aashan labaadna waxaa lagu yidhi ruuxii aad dishay meydkiisa xageed ku qarsay baa lagu weydiiyey marka under the bed waxaa tiri sariirta hoosteeda marka waxay ka dhigan tahay you were infected killed the person xaqiiq ahaan waa dishay ruuxa sooma su-aal kale haddana yaa ku hoos lamaan. sidoo kale ruuxan hadduu kaga jawaaba kasoo qaad baa la yidhi su-aashii koowaad ah imtixaanka maad qasatay no buu kaga jawaabay. su-aasha labaad ee ah meydkii ruuxii aad dishay xageed ku qarisay wuxuu yidhi no meel lama kuma qarin. marka waxay ka dhigan tahay su-aal labaad ba haddana ka dhan waxaa laleeyahay waxaa lagu weydiiyey inaad imtixaanka qashti inaad joojisay inay kale no baa tiri marka waad sii wadaa weli somaa qashti weli waad sii wadaa. su-aasha labaadna waxaa lagu yidhi xagee baad ku qarisay baa lagu yidhi kadib waxaad ku jawaabtay nowhere meel marka it follows that you have destroyed the corpse. marka meydkii ruuxa waa jarjartay waad burburisay. marka waxaa la yidhi each of these question sida iska cad baa la yidhi each of these question is relative question. su-aal kasta ayaa la yidhi waa laba su-aalood. su-aalaha noocan inta badan waxaa la yidhaha ruuxa markii la gelinayo la raba in la geliyo dabin ah inuu xoog lagala baxo ayaa la rabaa su-aalaha nooc su-aal u dhigan hal su-aal laakiin su-aalo badan ku hoos jira lagu weydiin oo markaa su-aashii ka jawaabtaba jawaabtaadii bay su-aalo ka dhalanayaan. false dichotomy noocan la yidhahdo isagoo la yidhi waxaa la yidhi noocani wuxuu dhacaa baa marka ruuxu distinctive premise baa la yidhi either or waxaa la isticmaalayo oo laba shay la kala dooranayo marka baa la yidhi ay premise ku soo jeediyaan laba shay oo aan suuragal ahayn inay sida iyagu ah labada shay ay kaliya la heli karo laba shay oo aan suuragal ahayn ayaa lagu soo dhigaya inay yihiin labada choice ay haysato ama labada shay aad kala dooranayso kaliya inay yihiin kadibna ruuxan doodaya labadii midbuu meesha ka saaray midda uuna rabin wuxuuna soo reebayaa midda uu rabo conclusion ahaan soo reebaya. tusaale ahaan waxaa la yidhi either you are going to buy me a new car or I will divorce you. wuxuu leeyahay ama gaari cusub aad iibin ama waan ku furi. marka you do not want me divorce you inaan ku furo ma rabti sooma marka midii ula rabin undesirable meesha ka saaray this you have to buy me tii dambe midii kale soo hadhay conclusion ka dhiga wuxuu leeyahay this you have to buy me a new car gaari cusub marka waa inaad iibsa laakiin
waxaa la yidhi labadan ba eeg waa haddii mid ka mid a labadan alternative hadduu midkood yahay baa la yidhi true fallacyga markaa la yidhahdo fallacy is not committed baa la yidhi marka wax khalado oo dooda ku jira ma jira tusaalahaan soo socda baa la yidhi waa valid and sound waxaa la yidhi either Abai river is in Ethiopia or it is in South Africa waxaa la yidhi Abai Ethiopia ku yaalla ama South Africa ku yaalla waxaa la yidhi river Abai is not in South Africa South Africa kuma yaalla therefore river Abai is in Ethiopia marka wax kastoo destructive ma aha premise destructive oo laba shay la kala dooranaya fallacy khalad kuma jiro haddii mid ka mid a labada alternative uu true yahay wax khalad kuma jiro sida tusaalahan aan aragno oo kale suppressed evidence waxaa la yidhi noocan waxaa la yidhahdaa ruuxan wuxuu soo jeedinayaa maxay cadaymo qayb ka mid a cadaymihii buu qayb ka mid a cadaadin uu nabaya waxay ka dhigantay qayb ka mid a cadaymihii loo baahnaa yuu qarinaya cadaymahaasoo laga yaaba inay conclusionka dhan kale ay u leexiyaan ama conclusionkan u sameeyey mid ka duwan ay keeni lahayn the requirement of true premise includes the proviso that the premise is not ignore some important piece of evidence waxaa la yidhi premise runa si loo keeno waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid a shardiga in premiseka waa inay iska indhatirin qayb muhiima oo ka mid a cadaymaha kuwaasoo laga yaaba baa la yidhi inay dhinac u ridaan maxay cadayntan aad soo jeedisa ama different conclusion ay keenaan waxaa la yidhi haddii cadaymaha noocan oo kale hadduu iska indhatire baa la yidhi doodaha inductiveki marka waxaan dhahnaa doodaas waxaa ku jira khalad la yidhahdo fallacy of suppressed evidence marka tusaalahaan waxaa laga yaabaa inaad leedahay hebel waa in loo dhiibaa waa in shirkadaas ama wasaaradda waa in madax looga dhigo kasoo qaad waxaad leedahay hebel waa nin fiican waa nin khabiira intaas sana soo shaqaynayay laakiin waxaa ninkan kasoo qaad waa nin aad musuq badni ku sifoobay marka ninka musuq badnidiisa ma sheegaysa haddaad odhan lahayd ninkan waa nin khabiir oo musuq badan laakiin ku sifoobay conclusionkaaga ah in aad meeshan ha loo dhiibaa cadayntaas ah way bedeli lahayd marka waxaad ka indhatiraysaa qayb ka mida muxuu ahaa cadayn muhiima oo laga yaaba inay conclusionkaaga ay dhan kale u rogi lahayd yaad ka indhatiraysaa marka haddaba noocyadan inta ugu badan waxay dhacaan baa layidhi xaysiisyada iyo waxyaabaha inta badan baa layidhi advertising waxyaabaha marka la xaysiinaya waxay iska indhatiraan baa layidhi inay sheegaan negative featureska iska leeyahay ama dhinacyada uu ku xun yahay productka ama waxsoosaarkan ay xaysiinayaan dhanka ku fiican yahay keliya lagu sheegay dhanka uu ku xun yahay lama sheegayo sababta haddii dhanka ku xun yahay la sheego conclusion ka duwankiibaa imanaya oo waxaa lagu xaysiinaya waxaan u fiican yahay waxaa lagu leeyahay iibso waxaan waa marka inta badan muxuu ahaa suppressed evidence wuxuu dhacaa baa layidhi xaysiisyada iyo waxyaabahaas ka dhaca fallacies of ambiguity and grammatical analogy fallacyska noocana waxay ka dhashaan baa layidhi erey macnihii oo dahsoon oo qarsoon ama isu ekaansho dhanka grammarka ama naxwaha ah marka fallacy of ambiguity waxaa ka mid a baa layidhi waa labadaan arki doonaa equivocation iyo amphibole waxaa layidhi noocyadan waxay ka dhacaan baa layidhi nooc dahsoonaana ama nooc ambiguity oo ku jira baa layidhi premiseka ama conclusionka ama labadaba ku jira kuwa kale grammatical analogyga baa iyagana waxaa ka mid a composition iyo division noocyadani baa layidhi waxay dhacaan marka labo argumenti oo grammatical ama naxwahaan su eg muxuu ahaaye dhinac isaga eg yaa laga yaaba in la isu qaldo waan arki doonaa fallacies of ambiguity haddaba laba nooc weeyaan equivocation aan aragna marka hore equivocation wuxuu leeyahay waxaa la yidhi marka erey laba macno oo kala duwan hal mar jumlada loo dhex isticmaalo macnahaas waa ambiguous ereygaas waa ambiguous laba macno kala ma caddo macnihiisu wuu dahsoon yahay waxay dhacdaa baa layidhi fallacygani marka conclusionka oo argumentigu iska leeyahay uu ku xiran yahay baa layidhi the fact that a word or phrase is used xaqiiqada baa layidhi erey ama jumlad kaaban in loo isticmaalay either explicitly or implicitly si cad ama si aan caddayn loo isticmaalay baa layidhi into different senses in the argument laba macno kala duwan baa ereyga dooda dhexdeeda loo isticmaalo argumentyada noocana baa layidhi waa invalid ama waxay leeyihiin false premise laba jeerana waa unsound tusaale ahaan waxaa layidhi some triangles are obtuse whatever is obtuse is ignorant therefore some triangles are ignorant waxaa layidhi ereyga obtuse yaa hadda laba macno kala duwan loo isticmaalo obtuse waxaa layidhi some triangles are obtuse saddex galada qaarkood waa obtuse obtuse waxaa layidhahdaa xagasha markay 190 marka ay ka badan tahay xagasha 90 ka badan baa layidhahdaa yaa layidhahdaa obtuse saa darteed saddex xagalkan saddexdiisa xaglood mid ka mid ah hadday 90 ka badan tahay saddex xagalkaas waxaa la odhan waa obtuse triangle sidoo kale ereyga obtuse waxaa loo isticmaalaa wuxuu la macneeya baa layidhi ereyga ignorant ruux jaahil oo doq wax noocaas la marka whatever is wax kastoo obtuse waa ignorant saa darteed saddex xagalada laftooda qayb ka mid ah yaa jaahiliina baa marka ereygan macnihiisa oo laba macno kala duwan loogu dhex isticmaalay dooda ayaa sababay muxuu ahaa khaladka tusaalahan kale any law can be repealed by the legislative authority waxaa layidhi sharci kasta waxba kama jiraan kasoo qaadi kara sharci dejinta oo meesha ka saari kara way burin karaan sharci kasta but the law of gravity is a law xeerka cufisjiidku sidoo kale waa law therefore the law of gravity can be repealed by the legislative authority awoodda muxuu qaybta muxuu ahaa sharci dejintu sidoo kale xeerka gravitigana waxa kama jiraan bay ku isticmaali karaan the law
xagga markii loo isticmaalo eega gravity uu low weeyaan laakiin waa maxay waa natural law kuwa kalena waa sharci caadi oo dadku ay dejiyeen marka ereyga low sharciga waa laba macno oo kala duwan ku jira muxuu ahaa argumentigan ambiguity-ga ereyga low ayaa sababay marka khaladka doodan ku jira amphibole waxaa la yidhahdaa fallacy-ga noocani wuxuu dhacaa marka ruuxan doodaya uu si khaldan u turjunto odhaah baa la yidhi ambiguous oon caddayn and then draws a conclusion based on this false interpretation waxaa la yidhi kadibna uu conclusion beena uu la yimaada baa la yidhi isagoo ku salaynaya turjumaadan khaladka waxaa la yidhi original statementiga badanaa waxaas keena shakhsi kale oo aan ahayn ruuxan doodaya kadibna ambiguity waxay ka timaadaa khalad ku yimaada baa la yidhi grammarka ama astaamaha qoraalka sida koobo oo laga tegay oo kale ama modifier baa la yidhi shay modifier baa la yidhi aan caddayn sidoo kale antecedent ama horgale aan isaguna ambiguous oo aan dahsoon ama si waxyaabo ama erayo si aan muxuu ahaye aan taxadar lahayn loo habeeyey yaa laga yaabaa inay ka yimaadaan marka ambiguity-gan ay statementigu iska leedahay laba nooc oo kala duwan baa laga yaabaa inuu ruuxi inuu u fahmo qaab kala duwan inuu fahmo waxaa la yidhi maybe understood into clearly distinguishable ways laba qaab oo la kala sooci karo in ruuxu fahmaa laga yaaba waxaa la yidhi marka khalad si khaldan ruuxi laga yaaba inuu turjunto maxay odhahdan ambiguous-ka ee uu sababay waxyaabahan aan hore soo sheegnay khalad ku yimid grammarka ama calaamad astaamaha qoraalka ama horgale tusaale ahaan waxaa la yidhi Haptam told Magersa that he had made a mistake Haptam ninka la yidhaha wuxuu u sheegay Magersa inuu khalad galay it follows that Haptam has at least the courage to admit his own mistakes waxay ka dhigan tahay Haptam inuu ugu yaraan leeyahay dhiiranaana uu ku qirto muxuu ahay khaladaadkiisa marka doodan markaan fiirino ereyga he ama pronounka he magacyaalka he waxaa la yidhi has an ambiguous antecedent horgale horgalayaal wuxuu leeyahay ambiguous tusaalaan Haptam iyo Magersa waa horgalayaashiisa oo ka horreeya labada midkood buu tixraacay marka lama kala garanay it can refer either to Haptam or Magersa ayaa laga wadaa higa tusaalaan Haptam ayaa wuxuu u sheegay inuu khalad sameeyay marka Haptam ma isaga iska hadlayo khalad baan galay mise Magersa la hadlayo leeyahay adaa khalad galay marka ma caddo waxaa la yidhi qiyaas ahaantii laakiin Haptam ayaa u sheegay baa la yidhi inuu isagu Magersa inuu khalad sameeyay marka odhayada noocan oo kale ayaa la yidhahdaa amphib waa odhaah muxuu ahay laba qaab loo turjuman karo khaladka noocaas marka ka yimaado turjumaada khaldan ee odhaahda ayaa la yidhahdaa muxuu ahay amphibole baa haddaba two areas where cases of amphibole cause serious problems involve contracts and wills waxaa la yidhi laba meelood oo uu sababa khaladka noocani uu sababa la yidhi dhibaato waxaa weeyaan contracts and wills heshiisyada iyo sidoo kale dardaaranada tusaale ahaan waxaa la yidhi master Zainab ayaa waxay sheegtay baa la yidhi doonitaankeeda in ay uga tagtay gurigeedii iyo dharkeediiba ay uga tagtay Cumar iyo Cali waxay tiri gurigeygii iyo dharkaygii waxaan uga tegay Cumar iyo Cali way dardaarmaysaa saa darteed waxaan leenahay Cumar guriga ayuu qaadan Calina dharka doodan fiiri waxaa la yidhi tusaalahan baa la yidhi conclusion obviously favors Cumar ayuu muxuu ahaay dhankiisa u doorbiday oo Cumar baa sababtoo waxaa la siiyey gurigii Calina waxaa la yidhi dharka qaad waxaa la yidhi Ali is almost certain markii la yidhahdo Cali Cumar ha qaato muxuu ahaay dharka Calina ha qaato Cumar ha qaato guriga Calina dharka ha qaato dee Cumar baa muxuu ahaay dhankiisii asxaan loo sameeyey marka Cali wuxuu ku doodi karaa baa la yidhi in dharka iyo guriguba si isku mid ah ay u wadaagaan sababtoo muxuu ahaay dee marka doodan loo fiirso kuma caddo laakiin Zainab baa la yidhi waxay samayn kari lahayd si ay doodan ay uga fogaato hadday isticmaali lahayd erayadan tusaalahaan oo kale respectively ama collectively tusaalahaan hadday odhan lahayd Cumar iyo Cali baan uga kala tegay respectively waxay noqon lahayd siday u kala horreeyaan waxay noqon lahayd Cali waxaan jeedaa Cumar wuxuu qaadan lahaa guriga Calina dharka laysku muran ma dhaceen sidoo kale collectively hadday odhan lahayd si wadar ah guriga iyo dharkaba way isla leeyihiin bay noqon lahayd to the end of the sentence dhamaadka dooda hadday ereyga labada erey midkood raacin lahayd ambiguity-ga ama khaladkan turjumaada khaladka doodan kordh dhinacan loo turjuman karo odhaahdan mayna dhacdeen fallacies of grammatical analogy xalila tan waa khaladaadka dhanka luqad soo ekaanshaha muxuu ahaay naxwaha waa laba nooc composition iyo division markii waxaa la yidhi these fallacies occurs wuxuu dhacaa when it's argued that waa marka lagu doodo baa la yidhi because the parties have a certain attributes waxaa la yidhi qaybaha ayaa sifo gaara leh marka qaybuhu maadaama waxa gaarka leeyihiin sidoo kale the whole oo wadarti qaybtii guudna iyaguna isla sidaas oo kale weeyaan waa inaan dhahno tusaale waxaa tiri each player on this basketball team is an excellent athlete waxaa la yidhi ciyaartoy kastoo kooxdan ka tirsan waa nin fiican sababta waxay ka dhigantaa kooxda dhan inay fiican tahay atom kasta oo ka mid ah baa la yidhi tamaashiirtan waxaa la yidhi ama each atom in this piece of chalk is invisible atom kasta oo ka mid ah baa qaybtan yar ka mid ah tamaashiirtii lama arko mid muuqda maaha therefore sidoo kale tamaashiirta lafteeduna waa invisible mid la arki kara maaha sidoo kale waxaa tiri sodium iyo chlorine oo ah qaybaha uu ka kooban yahay ay ka kooban tahay milixdu
waxa weeyaan baa layidhi waa both waxa weeyaan deadly poisons waa sun ama labadooduba waa sun dilaa weeyaan saa darteed waxaan leenahay saltiga lafteedu waa deadly poison oo milixda lafteedu waa dilaa haday ma aha laakiin sodium iyo chlorine marba hadday noqdeen baa iyadoo hadday ay ka samaysan tahay sodium iyo milixda sodium chloride hadday ka samaysan tahay iyada lafteedu waa deadly poison oo waxa weeyaan wuxuu khaladkani ka imanayaa astaan ay leeyihiin qaybuhu ayaad u wareejinaysaa maxay wadarta waxaa la yidhi laakiin nooc kasta oo nooc muxuu ahaye astaantii inaad ka wareejiso muxuu ahaye wadartii ood ugu wareejiso qaybahaad ka wareejiso wadarta u wareejiso ma aha baa la yidhi khalad kuma jiro qayba waxaa jira aan wax khaladi ku jirin tusaalahan haddaad tirahda every atom in this piece of chocolate has mass waxaa la yidhi atom kasta oo ka mid a muxuu ahaye qaybtan tabaashiirta wuxuu leeyahay cuf saa darteed qaybtan tabaashiirta lafteedu waxay leedahay cuf haddaad tirahdo waa sax sidoo kale waxaa tiri every component in this picket fence is white therefore the whole fence is white waxaa la yidhi deyrkan qayb yaroo kastoo ka mid way caddahay dadka waxa ka dhigtay deerka dhanna inuu cadiyo qayb kasta oo kamid ah yar haday caday deerka dhanna uu cadiyo tira marka kuwan oo kale iyagu waa maxay wax faalas wax khalad ah kuma jiro definition waxa la yiraahdaa is the exact reverse of composition kii ka soo horjeeda composition kii rogaalkiisa weeyaan tusaale waxa leedahay salt is non poisonous compound milixdu ama cusbadu waa isku dhis aan lahayn aan sun ahayn sidaa darteed waxay ka dhigan tahay componentska curiyaasha ay ka kooban tahay qaybaha ay ka kooban tahay waa maxay sodium iyo chlorine iyaguna waa non poisonous waxa leedahay astaan ay lahaay ay wadartu lahaa wax guudi u lahaa ayaad waxaad u wareejinaysaa qaybihii waxaa tiri the royal society is over 300 years old waxaa la yidhi qoyska boqortooyadu 300 oo sano ka badan buu jiray saa darteed general Marid Hussein oo member xubin ka ah royal society yaa isaguna xubin buu ka yahay saa darteed general Marid Hussein is over 300 years old general Marid Hussein laftiisu waa maxay 300 oo sano jira general Marid Hussein de 300 oo sano ma jiri karo ruux caadi waxaa leedahay maadaama qoyska boqortooyadu 300 oo sano jiro oo muxuu ahaay qaybtii guuda بارتي قيب يرو كميدا او ممبر كميدا او جنرال مارد حسين isaguna sidoo kale 600 sano jira على waa from whole to muxuu ahaay parts as with the fallacy of composition sidii fallacy composition oo kale iyadoo nooc kasta oo iyaguna ma aha khalad qayb badan waxa jira aan khalad ahayn tusaale ahaan waxa tiri this piece of chalk has mass xalay qaybtan yar tamashiirtan waxay leedahay cuf sababteed atamiyada ay ka kooban tahay laftooda iyaguna waxay leeyihiin cuf marka nooc tan oo kale wax khalad oo ku jira ma jiro halkaas ayuu ku egyahay cutubkii shanaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu